بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka baranno weydiintan ah what is the gross domestic product gross domestic product waxaa loo soo gaabiyaa GDP waxaan ku qeexi karnaa qiimaha lacageed ee wadanka ama qiimaha badeecadaha iyo adeegyada lagu soo saaray wadanka inta lagu guda jiro xilli mucayan ah waa meeqo haddaba qiimaynta kuma koobna oo keli ah wax soo saarka shirkadaha wadanka laga leeyahay ee waxaa lagu daraa sidoo kale shirkadaha shisheeye ee wadanka jooga waxa ay soo saaraan si kale haddaan u dhigno waxaan dhihi karnaa waa maxay qiimaha badeecadaha iyo adeegyada lagu soo saaray isla wadanka ciddii rabto ha soo saartee sanadka aan dhahno 2020 haddaba si loo xisaabiyo qiimahaas waxaa la adeegsadaa formulada ama qaacidadan hortiina ka muuqata midaasoo ah GDP waxay la eg tahay C plus G plus I plus NX C waxay u taagan tahay consumption halka G ay u taagan tahay government spending I waxay u taagan tahay investment halka NX ay u taagan tahay net exports markana aan isla aragno xarfahaas mid waliba wax u yahay kow haddaan ku hormarno xarafka C oo ah consumption waxaan dhihi karnaa waa imisa lacagta ay bixiyeen dadka degan wadanka si ay u soo gataan badeecado iyo adeegyo inta lagu guda jiro xilliga cayinaa oo aan soo sheegnay oo aan dhahnay tusaale ahaan 2020 labo markana aan isla aragno G oo ah qaybta labaad ee mucaadalada waxa ayna u taagan tahay government spending oo ah in lagu ogaado lacagta ama qarashka ay dawladdu bixisay iyo maalgelinta guud ee ay samaysay sida dhismaha kale iyo inay bixiso mushaaraadka waa meeqo inta lagu guda jiro again 2020 saddex markana waa I oo u taagan investment waxaan dhihi karnaa waa qarashaadka iyo maalgelinta ay sameeyeen shirkadaha si ay u ballaariyaan shaqooyinkooda meeqo ayay la ekayd inta lagu guda jiro isla sanadkaas aan rabno inaan xisaabino NX oo ah midda u dambeysa ee formulada una taagan net exports waxaan dhihi karnaa waa in la kala jaro meeqo ayaa wadanka loo soo dhoofiyey imports iyo imise ayaa dibadda loo dhoofiyey exports wixii ka soo bax ayaa loo yaqaanaa net exports haddaba waa muhiim iyana in la ogaado meeqo ayay la egtaa qiimahan haddaba si aan u ogaano waa imisa qiimaha wax soo saarka ee wadanka ee ka kooban badeecado iyo adeegyo waa in aan isku darnaa afartaas shay oo aan ka soo hadalnay nambarka inoo soo baxa ayaa la dhahaa gross domestic product ama GDP mahadsanediin waa inoo markala dirabidno